waxaan ku sameeyay waxa igala daran war shacabka dameerka miyuu idinka dhintay tan oo kala maaha wax fani laga sameeyo wax gaagaaban maahan qof dhan oo bini aadana oo gabar ah oo maskiin ah aan mustaqbalkeedii mugdi galay meesha dhihi lahaydeen waa aragtay meesha ku aragtay uga tag in aad sii sheer gareyso aawa dameerka shacabo war dameerka miyuu naga dhintay war naxariista miyay naga dhamaatay aan u soo laabto qofka waxaan ku sameeyay aniga horta iguma cusbo ragga magac un ragga ka ah balse u dhaqma qaab ka liita dumarka inaan ku mataalo ma kuwaas oo kale mararka qaar markii anaga aan wax sameeyno ragga hadii aan nahay waraa dumarka ka liidata taas naftirkeed in la dhaha qalad ah oo qof la yiraahdo dumarka ka liidata dumar maxay u liitaan ma liitaan waa run 50 way yihiin oo niraga hadii aad tahay ilaahay boqol uu ka dhigay sababta aad boqol u tahay maxay tahay mataqaana garashada iyo garaadka iyo naxariista waayo dumarku waa masaakiin balka waran ilaahay baan kugu dhaarshay nin raganimo sheeganaya oo gabar ugu hanjabaya ama gabar intuu la haasaabo muuqaal inta ka duubo soo dhigaya war boqol aragnaa anaga wallahi kuwa la isoo waca arkay ee la dhahay walaal nin saas jiro waa ku baryaaya adaa bulshada ku jiro oo caana wuxuu igu hanjabay meeshaas iyo meeshaas inuu isoo dhigayo ee waa ku baryaa walaalkay hadii aad taqaanid la xiriir igala hadal wallahi ilaaha iga hadal siinayo wallahi summa billahi summa tallahi wa isoomartay ninkaas caanka magaciisa afkeyga kama sheegay maadaama arintaas la soo xaliyay gabar baa inta soo wacday igu tiri nin hebel oo caan ah ayaa waxna dhex mareen mar uu meeshaas yimaaday oo aniga aan ku noolaa waxaan ka baryayaa walaalo maadaama nin caan tahay oo fanaaniinta kala taqaanid dadka bulshada caanka ah taqaanid wariyaasha aad taqaanid adiga maadaama dadka caanka ah aad contact leedihiin hadii aad maaragtay contact la leedahay hadaan la lahaynba in aad iraadiso walaalo ninkaas in la hadlo wax saas amal iga haya in ninkaas wuxuu ugu hanjabay in uu soo deen doono waxba isku afahmi weynay wuxuu iga hanjabay in muuqaalo iga hayay uu ii soo diran ku naxay in arintaas aa gashaan ilaahay wuxuu nagu ogaa arinta waa la galay isagina xoogaha axmaq saasa muu ahaane wuu isgartay barteeda lagu damiyay gabadhaasna sharafteeda ilaahay waa u badbaadiyay marka dadka waxa ku jiro dad caan ah fanaaniin leh wariyaal leh wax kasta leh oo bulshada magac ku leh oo la moodo in sharaf ay leeyihiin oo markay hadlayaan iska dhigay inay dumarka ixtiraamaan balse wallahi oo billahi ayadoo caanimadooda lagu soo raasanaya ayaa gabdhaha masaakiinta markay soo raashadaan waxay ku sameeyaan intay ka waalaan kadibna sidaan oo kale screen recording intay ku sameeyaan ayay waxay ugu hanjabaan waxyaabaha qaar inay la saxdaan oo kale in maaragtay Allahu musta'an lacag xitaa mararka qaar lagu xujeeyo oo kale siyaabooyin fara badan mararka qaar waxa dhacdo in intay la haasaawaan ay saan oo kale screen recording ku sameeyaan ee ka duubaan gabadhina real life markay imaado kale inay diido inay la seexato waa gabar masaakiina wuu ka waalay maskaxdu ka galay adiga wax maaragtay aan saxumo la sameeyay intuu la sameeyay saan oo kale screen recording uu ka duubay hadhow wuxuu leeyahay hotel hebel ama meel heblaay aan kugu balansaday imaw gabadhi taleefanka in waxas laga sameeyo way ogolaatay balse ma ogolo in caadi ahaan ay ugu tagto oo way ku adkeenay markaas wuxuu leeyahay waa diiday Soomaha in adiga aan maaragtay wada seexano wax sameeyno waa diiday Soomaha hadaba muuqaalkaas aan hayaa oo aan soo bandhigi doonaa sababta keenta gabdhaha yaryar in muuqaaladooda bulshada lagu soo baahiyo u fiirso gabadha ka qurxantaa la raadinaa caana la yahay ama lacaga la haystaa waa la hadlaa maskaxda la gala ama lacag loo sheegto ama caanimo kala loo sheegtay gabadha masaakiinta ahayd waa laga waalaa ugu dambeyn muuqaal noocaan oo kala ala la sameeyna ayadoo video call lagu sheekeysanayo gabadha waa laga waalaa saan oo kale wax sameeyna screen recording lagu sameeyna hadhow baa waxa la leeyahay hotel hebel aan isku qabanno ama meel hebel aan isku qabanno ina ila seexata u baahana iima oo kale gabadha waxa laga yaabaa inay ku adkeyso telephone in uga waalay u suurta gashay real life in gabadhii ugu adkeyso inuu la galmoodo ama uu la seexdo ama uu la tunto whatever markaas waxa loogu hanjabaa gabadhii waa diiday Soomaa in aniga ila tumato ila seexato muuqaalkaana ka haya baraha bulshada iska fiiri wallahi summa billahi summa tallahi anigu ma gabado mana cabsado waxaan hadda ka sheekeenayo wallahi waa wax reality ah raggaas hadii anaga rag aan nahay nama matalaan wallahi billahi baan idin ma sheegay garaad male oo karti male oo damqasho male oo raganimana male
magaca raggana iyagaa ceebeeyey war maxaad ula yaabaysaan qurbaha markii la joogo gabdhaha Afghanistan iyo wax aan waxbana dhaamin oo uraya la sheekeysanaya waxaa keena ragga magaca ragga wata aan rag ahayn maanta markii gabadha uu la sahaasaabo ayagoo isku magaalo joogan gabdhaha fiiri aan hadda magaalada aan joogo ama Sweden oo kale ama wadan kale oo Yurub ama magaalo kale adiga Soomaalida wiilasha iyo gabdhaha joogo way kala dhacayaan gabadhu waxay raadinay wiil kale oo Soomaaliya magaalo kala degan maxaa keenay gabadha xun ma ahane nimanka Soomaalida ayaa xun gabadha waxa ku kalifay in ajnabi ee la sheekeysata meelaha saawdo waxa keenaa waxay tahay gabadhu way baranay basuu ku baranaa wadoo ku barana lambarku ka qaada lambarka markuu ka qaado ay wuxuu leeyahay abba ma kulmi karnaa ma ku imaada ama may imaane kaba soo qaadi imaaw tiri gurigeedu tagay cashe u sameeyay maxaa la yiraahdaa way fariisanayaan TV-gaas la daawana way la wada qosle hadhow iska soo baxa asoo waxba ku sameeyay markaasuu magaalada intuu galo oo wuxuu leeyahay intii yareed koobka biyaha u soo qabanaysay ama cashada ay sameeynaysa socotay ayuu intuu ku gaado snap yar oo ka duubto oo hadhow rag intuu u tago wuxuu leeyahay taasa balaa iga dhigo samaano kaal wax fiir waatana muujadido xalana gurigeedu ku raacsanaa gurigeedu soo mataqaanid xalana gurigeedu kula tumanay haye maxaa u diiday markii gabdhihii in ay door bidaan Afghanistan iyo Nigeria iyo walax daran inay madax la galaan waxa keenaya ayaa waxay tahay hadda waxa ka buuxa dhalinyarada Soomaalida kuwa rag isku sheeg ah oo magaca ragga nala sita oo naceebeystay bal ka waran ninka magac raganimo sheeganaya Ilaahay baa idinku dhaarshay oo gabar ku dhiiranaya ceebteeda in uu dhaho dibadda u soo dhigaa waxaan ka hayay ee soo dhigaya saano kalena dhacaysa bal ka waran kuwa ku rakaateynaya gabdhaha lacagta bal ka waran kuwa ku rakaateynaya gabdhaha waa ila seexan weyso Soomaa ina ila tumata diiday ogow muuqaalka isaga marka video callka ila haleysay ayaan ka duubo ka haya raggaas maxaa ku xukumay lahayd haddii aad tahay nin rag oo damiir leh oo iyaga kale aan ahayn haddii aad tahay nin rag oo damiir leh oo iyaga oo kale aanan ahayn ilaahay idinku dhaarshay raggaas oo kale maxaa ku xukumay lahayd ani weydii wallahi summa billahi summa tallahi ilaahay iguma keeno aniga oo gabar walaashay ay saas ku dhacdo adduunka intaan saaranahay qalad kasta oo liga galo si kasta qof bini aadan ay xumeeyo wax kasta oo dhaco lagama yaabo inaan ku dhiirado naf bini aadan inaan gooyo laakiin wallahi summa billahi summa tallahi naf waxaan gooy lahay oo aan adduunkan tigid uga jar lahay aan ka masaafurin lahay nin asaageeya marka gabar walaashii qalad caynkan oo kala uu ka galo wallahi adduunka waa ka masaafurin lahay feer ma ahan dagaal kala ma ahan naftan dhaafsii lahay haddaba waxaan idiin sheegaa aniga hadda saan u gubanayo oo aan idinku cadeynayo hortiina inaan naf gooyo goorta iga suurtoobi lahayd marka gabar walaashayga lagu qaldamo ayay hadda gabadhan caanka ah oo maanta ceebta dhex dabaalanaysa wiilka la dhashayna maanta uu dareemaya waxaan idiin sheegayaa kuwiina rag isku sheega ama caan ahaada ama ha ahaanina ee gabdhaha ugu hanjaba in ceebahooda ay soo dhigayaan ama in ay la seexdaan ama inay lacag ka qaadaan ama whatever wariyaa gabar weligaa ceebteeda ku dhiiran hana la xifaaltamin haddii aad tahay nin rag oo ilaahay boqolnimada uu kaa dhigay aad ka turjumayso oo dabeecaddeeda aad leedaho raganimada ma aha midda kor ah iyo jiimka la wada aadiya dharka la xiran yahay iyo garkan raganimada waa nin kasta ula dhaqmo dumarka raganimada lagu sheegayo nin rag nin kale ula dhaqmo ma ahan ninka ragga sida dumarka ula dhaqmo dumar waa daciif waa masaakiin nacalla wirid A few moments later. marka umaday raggaas oo kale iska dhex qabta hadda gabadhan masaakiinta ah ha fiirinina iyada naag xuna caana ahayd balaaye ahayd intay ka dhacday horta dadkeenan caanka ah waxaa jiro dad fara badan oo jecel sideen oo kale inay noqdaan haddana nacab dadkaas oo kale maanta ciidooda waay laakiin midaan kuu sheegaa haddii maanta aad shacab tahay oo gabar masaakiina caan ha ahaato ama ay ahaan ceeb ku dhacda ku farxaysid you are the next waayo qalbiga ka xun tahay waa ku xigtaa walaashaa bari ku xigta gabar haddii aad tahay oo gabar walaashaa ceebteeda ku farxaysid adaa tomorrow ku xiga marka midda idinka codsanaya waxay tahay shacabow damiir yeesha haddii ay dhacdo qof caan ah iyo qof aan caan ahaynba saan oo kale axmaq inuu kusoo sameeyo isku daya isla markiiba
in aydan sheergareynin kuwa soo sheergareynayana runtaa u sheegtaan oo qofkaas maskiinka ah ceebtiisa aan la faafinin waayo damoor qof bini'aadana masiibo ku dhacday aa iskayn la tirto aadan soo dhigdhigin meelaha haddii aad ka hadlaysana aad uga hadasho dadka waxaa sameeyey inay ciqaabtooda muteystaan wallaahi weligaa ceeb aa leedahay ilaahay ma soo bandhigayo war waa kuma qofkana abuurtay waa kuma qofkana abuurtay ilaahay waaye ilaahay ayaa wax kasta awoodiisa ay gacantiisa ku jirtaa wuu awoodaa maanta haddii aad ku farxaysid gabar ceebteeda in ilaahay adiga next uu kaa dhigo the next day ayadoo meel dheer la gaarinba waxaa laga yaabaa inaa isdhahayd gabar hiblaa ceeboodaya ha ani difaaca gala haddiiba aad ku farxaysid ceeb walaalkaa waxaa macquula tomorrow adiga inaad ku xigtid aad iyo aad aan uga xumahay gabadhaas walaasheena waxa ku dhacay run ahaantii ani ahaanteeda siikay ahaan waan ka xumahay qof dumar ah ayaa waxaa dhacday in mustaqbalkeeda uu mugdi galo saa aragteen qof waxyaabahaas aan idinkaga sheekeynayo oo bulshada dhexdeeda laga soo dhigay oo la wadwado iyada say dareemayso xaaladan hadda la taagan yahay waxaa laga yaabaa inay ku fikirayso nafta inay isdhaafiso iyada kuwa la dhashay ee familkeeda ah iyo dadka dhalaba waxay ku fikirayaan maanta nafta inay isdhaafiyaan haddii la rabo xanuun bay dareemayaan waxaa idiin sheegaa qof bini'aadan ha ku dhiiranin haddii masiibo saan oo kale ay ku dhacdo inaad sheergarayso ama inaad ku farxdo waxaa kuu soo haray kuwa sidaa sameynaya ee isku sheegaya inay nimo rag yihiin nimo rag anigu ma aqaano kuwaasoo kale waa kuwa naceebeeyey waa kuwa haddii xitaa qurbaha aan joogno ama meel kale dumarka naga didaya ajaanibta raacaya kuwa sababay waraa gurigay ku balaminay koob shaaxay u sameynaya xaggay fadhiisinay wiil Soomaaliyeed oo la haasaabay oo xiriir u sheeganaya oo kale ay jiko u galay cas u sameynay intay jikada mermeeraysanaysa iyo forforaysanaysa intuu dabadeeda waxa duuduubo oo intuu u diro ragga ayadoo gurigeeda u joogo oo ragga qaar intuu u diro wuxuu leeyahay qofta balaayid iga dhigeyseen qof dhacdo ma ahan iyo qof doorsoon waa kaas xal gurigeeda joogo cadan saar waa ka samaystay balka war meelaheedu ku dhaarshay kuwaas ragga ku jiro anyway waxaa idinkaga tegayaa haddii shacab aad tahayna ha ku dhiiranin masiibo qof walaalkaaya inaad ku farxid ama aad faafisid kuwa waxaan sameynayana gacan bir ah aan isaga qabano maanta mid haddii uu sameeyo gabar caana ama gabar caan yaysan ahayn asoo kufsaday waxba ma dhaamo waa gabar waryaa hadhayn iyada kibir badana xoolo dhalay akumatiga wuxuu kusoo qori doonaa hadhow iyada kooqday iyada saan samaysay iyada ogoleed waryaa walaasha Allah ku rido walaasha nagista Allah ka dhigo wariyaa fikir dumar waa masaakiin waa laga waali karaa in uu ka waalay oo adigaan hadda idaawanaya aad ka waali kartid ogow in uu ka waalay isdhihin hanu ku fikirin gabadhan ayada ogolaatay saan hala yeelo iyada inta ka dhacday wariyaa raganimadiina dumarka ugu xoog sheeganina ee raganimadiina dumarka ku difaaca Shut up,
gabadha waxaan ku sameeyey waxa igala daran war shacabka dameerka miyuu idinka dhintay tan oo kale maaha wax fani laga sameeyo wax gaagaaban maahan qof dhan oo bini'aadana oo gabar ah oo maskiin ah aan mustaqbalkeedii mugdi galay meeshaa dhihi laheedeen waa aragtay meeshaa ku aragtay uga tag in aad sii sheer garayso aawa dameerka shacabow war dameerka miyuu naga dhintay war naxariista miyay naga dhammaatay aan u soo laabto qofka waxaan ku sameeyey aniga horta iguma cusbo ragga magac un ragga ka ah balse u dhaqma qaab ka liita dumarka inaan ku mataalo maaha kuwaasoo kale mararka qaar markii anaga aan wax samaynayn ragga haddii aan nahay waraa dumarkaa ka liidataa taas naftirkeed in la dhahaa qalad ah oo qof la yidhaahdo dumarkaa ka liidataa dumar maxay u liitaan ma liitaan waa run 50 way yihiin oo nin rag haddii aad tahay ilaahay 100 uu kaa dhigay sababta aad 100 u tahay maxay tahay mataqaanaa garashada iyo garaadka iyo naxariista waayo dumarku waa masaakiin bal ka waran ilaahay baan kugu dhaarshay nin raganimo sheeganaya oo gabar ugu hanjabaya ama gabar intuu la haasaabo muuqaal inta ka duubo soo dhigaya war 100 aragna anaga wallahi kuwa la ii soo waca arkay ee la dhahay walaal nin saas jiro waa ku baryayaa adaa bulshada ku jiro oo caana wuxuu igu hanjabay meeshaas iyo meeshaas inuu isoo dhigaayo ee waa ku baryaa walaalkay haddii aad taqaanid la xiriir igala hadal wallahi ilaaha iga hadal siinayo wallahi summa billahi summa tullahi waa isoo martay ninkaas caankaa magaciisa afkeyga kama sheegayo maadaama arrintaas la soo xaliyey gabar baa inta isoo wacday igu tiri nin hebel oo caan ah ayaa waxna dhex mareen mar uu meeshaas yimaaday oo aniga aan ku noolaa waxaan kaa baryayaa walaalow maadaama nin caan tahay oo fanaaniinta aad kala taqaanid dadka bulshada caanka ah aad taqaanid wariyaasha aad taqaanid adiga maadaama dadka caanka ah aad contact leedihiin haddii aad maaragtay contact la leedahay haddaad la lahaynba in aad ii raadiso walaalow ninkaas in lala hadlo wax saas camalow iga haayaa in ninkaas wuxuu igu hanjabay in uu soo deyn doono waxbaan isku afahmi weynay wuxuu iga hanjabay in muuqaalo iga haayay uu ii soo diraan ku naxay in arrintaas aad gashaan ilaahay wuxuu nagu ogaa arrinta waa la galay isagina xoogaha axmaq saasa muu ahaane wuu isgartay barteeda lagu damiyey gabadhaasna sharafteeda ilaahay waa u badbaadiyey marka dadka waxaa ku jiro dad caan ah fanaaniin leh wariyaal leh wax kasta leh oo bulshada magac ku leh oo la moodo in sharaf ay leeyihiin oo markay hadlayaan iska dhigay inay dumarka ixtiraamaan balse wallaahi oo billaahi ayadoo caanimadooda lagu soo raasanaya ayaa gabdhaha masaakiinta markay soo raashadaan waxay ku sameeyaan intay ka waalaan kadibna sidaan oo kale screen recording intay ku sameeyaan ayay waxay ugu hanjabaan waxyaabaha qaar inay la seexdaan oo kale in maaragtay allahu mustacaan lacaga xitaa mararka qaar lagu xujeeyo oo kale siyaabooyin fara badan mararka qaar waxaa dhacdo in intay la haasaawaan ay saan oo kale screen recording ku sameeyaan ee ka duubaan gabadhina real life markay imaado kale inay diido inay la seexato waa gabar masaakiina wuu ka waalay maskaxdu ka galay adiga wax maaragtay anshaxumu la sameeyay intuu la sameeyay saan oo kale screen recording uu ka duubay hadhow wuxuu leeyahay hotel hebel ama meel heblaay aan kugu balansada iyo imaw gabadhi taleefanka in waxaas laga sameeyo way ogolaatay balse ma ogolo in caadi ahaan ay ugu tagto oo way ku adkeenay markaas wuxuu leeyahay waa diiday Soomaha in adiga aan maaragtay wada seexano wax sameeyno waa diiday Soomaha haddaba muuqaalkaas aan hayaa oo aan soo bandhigi doonaa sababta keenta gabdhaha yaryar in muuqaaladooda bulshada lagu soo baahiyo u fiirso gabarba gabadhay ka qurxantaa la raadinaa caana la yahay ama lacagaa la haystaa waa lala hadlaa maskaxda laga galaa ama lacag ha loo sheegto ama caanimo kale ha loo sheegtee gabadha masaakiinta ahayd waa laga waalaa ugu dambeyn muuqaal noocaan oo kalaa lala sameynaa ayadoo video call lagu sheekeysanayo gabadha waa laga waalaa saan oo kale wax sameynaya screen recording lagu sameynaa hadhow baa waxaa la leeyahay hotel hebel aan isku qabanno ama meel hebel aan isku qabanno inay la seexataa u baahanaa iima oo kale gabadha waxaa laga yaabaa inay ku adkeyso telephone in uga waalay u suurta gashay real life in gabadhii ugu adkeyso inuu la galmoodo ama uu la seexdo ama uu la tunto whatever markaasa waxa loogu hanjabaa gabadhii waa diiday Soomaa in aniga ila tumato ila seexato muuqaalkaana ka haya baraha bulshada iska fiiri wallahi summa billahi summa tallahi anigu ma gabado mana cabsado waxaan hadda ka sheekeenayo wallahi waa wax reality ah raggaas haddii anaga rag aan nahay nama matalaan wallahi billahi been idin ma sheegayo garaad male oo karti male oo damqasho male oo raganimana male
magaca raggana iyagaa ceebeeyey war maxaad ula yaabaysaan qurbaha markii la joogo gabdhaha Afghanistan iyo wax aan waxbana dhaamin oo uraya la sheekeysanaya waxaa keena ragga magaca ragga wata aan rag ahayn maanta markii gabadha uu la saxaasaabo ayagoo isku magaalo joogan gabdhaha fiiri aan hadda magaalada aan joogo ama Sweden oo kale ama wadan kale oo Yurub ama magaalo kale adiga Soomaalida wiilasha iyo gabdhaha joogo way kala dhacayaan gabadha waxay raadinay wiil kale oo Soomaaliya magaalo kala degan maxaa keenay gabadha xun ma ahane nimanka Soomaalida ayaa xun gabadha waxa ku kalifay in ajnabi ee la sheekaysato ama ee la haasawdo waxa keenaa waxay tahay gabadha way baranay basoo ku baranaa waddo ku barana lambarku ka qaada lambarka markuu ka qaado ay wuxuu leeyahay abba ma kulmi karnaa ma ku imaada ama ma iimaane kaba soo qaadi imaawatiri gurigeedu tagay cashe u sameeyay maxaa la yiraahdaa way fariisanayaan TV-gaas la daawana way la wada qoslay hadhow iska soo baxa asoo waxba ku sameeyay markaasuu magaalada intuu galo oo wuxuu leeyahay intii yareed ee koobka biyaha u soo qabanaysay ama cashada ay sameeynaysa socotay ayuu intuu ku gaado snap yar oo ka duubto oo hadhow rag intuu tago wuxuu leeyahay taasa بلا يقدروا سامانو قال وحفير وطنا موجودو حلنا غورغيدو كورا سنه غورغيدو سو متقانين حلنا غورغيدو كله تمنay هي maxaa u diiday markii gabdhihii in ay door bidaan Afghanistan iyo Nigeria iyo walaxdar inay madax la galaan waxa keenaya ayaa waxay tahay hadda waxa ka buuxa dhalinyarada Soomaalida kuwa rag isku sheeg ah oo magaca ragana la sita oo naceebeystay balka waran ninka magac raganimo sheeganaya ilaahay baa idinku dhaarshay oo gabar ku dhiiranaya ceebteeda in uu dhaho dibadda u soo dhigaa waxaan ka hayay ee soo dhigaya saano kalena dhacaysa balka waran kuwa ku rakaateynaya gabdhaha lacagta balka waran kuwa ku rakaateynaya gabdhaha waa ila seexan weyso Soomaa ina ila tumata diiday ogow muuqaalka isaga marka video callka ila hadlaysay ayaan ka duubo ka haya raggaas maxaa ku xukumay lahayd haddii aad tahay nin rag oo damiir leh oo iyaga kale aan ahayn haddii aad tahay nin rag oo damiir leh oo iyaga oo kale aanan ahayn ilaahay idinku dhaarshay raggaas oo kale maxaa ku xukumay lahayd ani weydii wallahi summa billahi summa tallahi ilaahay iguma keeno aniga oo gabar walaashay ee saas ku dhacdo adduunka intaan saaranahay qalad kasta oo liga galo si kasta qof bini aadan ay xumeeyo wax kasta oo dhaco lagama yaabo inaan ku dhiirado naf bini aadan inaan gooyo laakiin wallahi summa billahi summa tallahi naf waxaan gooy lahay oo aan adduunkan tigid uga jar lahay aan ka masaafurin lahay nin asaageeya marka gabar walaashii qalad caynkan oo kala uu ka galo wallahi adduunka waa ka masaafurin lahay feer ma ahan dagaal kala ma ahan naftan dhaafsii lahay haddaba waxaan idin sheegaa aniga hadda saan u gubanayo oo aan idinku cadeynayo hortiina inaan naf gooyo goorta iga suurtoobi lahayd marka gabar walaashayga lagu qaldamo ayay hadda gabadhan caanka ah oo maanta ceebta dhex dabaalanaysa wiilka la dhashayna maanta uu dareemaya waxaan idin sheegayaa kuwiina ragga isku sheega ama caan ahaada ama ha ahaanina ee gabdhaha ugu hanjaba in ceebahooda ay soo dhigayaan ama in ay la seexdaan ama inay lacag ka qaadaan ama whatever wariyaa gabar weligaa ceebteeda ku dhiiran hana la xifaaltamin haddii aad tahay nin rag oo ilaahay boqolnimada uu kaa dhigay aad ka turjumayso oo dabeecaddeeda aad leedaho raganimada ma aha midda kor ah iyo jiimka la wada aadiya dharka la xiran yahay iyo garkan raganimada waa nin kasta ula dhaqmo dumarka raganimada lagu sheegayo nin rag nin kale si ula dhaqmo ma ahan ninka ragga sida dumarka ula dhaqmo dumar waa daciif waa masaakiin nacalla wirid A few moments later. marka umaday raggaas oo kale iska dhex qabta hadda gabadhan masaakiinta ah ha fiirinina iyada naag xuna caana ahayd balaaye ahayd intay ka dhacday horta dadkeenan caanka ah waxaa jiro dad fara badan oo jecel sideen oo kale inay noqdaan haddana nacab dadkaas oo kale maanta ciidooda waay laakiin midaan kuu sheegaa haddii maanta aad sacab tahay oo gabar masaakiina caan ha ahaato ama ay ahaan ceeb ku dhacda ku farxaysid you are the next waayo qalbiga ka xuntahay waa ku xigtaa walaashaa biri ku xigta gabar haddii aad tahay oo gabar walaashaa ceebteeda ku farxaysid adaa tomorrow ku xiga marka midda idinka codsanaya waxay tahay shacabow damiir yeesha haddii ay dhacdo
qof caan ah iyo qof aan caan ahaynba saanoo kale axmaq inuu kusoo sameeyo isku daya isla markiiba in aydan sheergareynin kuwa soo sheergaraynayana runtaa u sheegtaan oo qofkaas maskiinka ah ceebtiisa aan la faafinin waayo damoor qof bini-aadana masiibo ku dhacday aa iskayn la tirto aadan soo dhigdhigin meelaha haddii aad ka hadlaysana aad uga hadasho dadka waxaa sameeyey inay ciqaabtooda muteystaan wallaahi weligaa ceeb baa leedahay ilaahay ma soo bandhigayo war waa kuma qofkana abuurtay waa kuma qofkana abuurtay ilaahay waaye ilaahay ayaa wax kasta awoodiisa ay gacantiisa ku jirtaa wuu awoodaa maanta haddii aad ku farxaysid gabar ceebteeda in ilaahay adiga next uu kaadiyo the next day ayadoo meel dheer la gaarinba waxaa laga yaabaa inaa isdhahayd gabar hiblaa ceewoodaya ha ani difaaca gala haddiiba aad ku farxaysid ceeb walaalkaa waxaa macquula tomorrow adiga inaad ku xigtid aad iyo aad aan uga xumahay gabadhaas walaasheena waxa ku dhacay run ahaantii ani ahaanteeda siikay ahaan waan ka xumahay qof dumar ah ayaa waxaa dhacday in mustaqbalkeeda uu mugdi galo saa aragteen qof waxyaabahaas aan idinkaga sheekeynayo oo bulshada dhexdeeda laga soo dhigay oo la wadwado iyada say dareemayso xaaladan hadda la taagan yahay waxaa laga yaabaa inay ku fikirayso nafta inay isdhaafiso iyada kuwa la dhashay ee familkeeda ah iyo dadka dhalaba waxay ku fikirayaan maanta nafta inay isdhaafiyaan haddii la rabo xanuun bay dareemayaan waxaa idiin sheegaa qof bini-aadana ha ku dhiiranin haddii masiibo saan oo kale ay ku dhacdo inaad sheergarayso ama inaad ku farxdo waxaa kuu soo haray kuwa sidaa sameynaya ee isku sheegaya inay nimo rag yihiin nimo rag anigu ma aqaano kuwaasoo kale waa kuwa na ceebeeyey waa kuwa haddii xitaa qurbaha aan joogno ama meel kale dumarka naga didaaya ajaanibta raacaya kuwa sababay waraa gurigay ku balaminay koob shaaxay u sameynaya xaggay fadhiisinaya wiil soomaaliyeed oo la haasaabay oo xiriir u sheeganaya oo kale ayaa jiko u gelaya cash u sameynaya intay jikada meermeereysanaysa iyo forfooreysanayso intuu dabadeeda waxaa duuduubo intuu u diro ragga ayadoo gurigeeda u joogo oo ragga qaar intuu u diro wuxuu leeyahay qoftaa balaayada iga dhigeyseen aad dhigeyseen qof dhacdhacdo maahan iyo qof dhoorsoon waa iyo waa kaas xali gurigeeda joogo caddeen saara waa ka samaystay balka warma ilaahay ku dhaarshay kuwaasaa ragga ku jiro anyway waxaa idinkaga tegayaa haddii shacab aad tahayna ha ku dhiiranin masiibo qof walaalkaaya inaad ku farxid ama aad faafisid kuwa waxaan sameynayana gacan bir ah aan isaga qabano maanta mid haddii uu sameeyo gabar caana ama gabar caan iyaysan ahayn asoo kufsaday waxba ma dhaamo waa gabar waryaa hadhayn iyada kibir badana xoolo dhalay akumantiga wuxuu kusoo qori doonaa hadhow iyada kooqday iyadaa saan samaysay iyadaa ogoleed waryaa walaashaa allah ku rido walaashaa nagista allah ka dhigo waryaa fikir dumar waa masaakiin waa laga waali karaa in uu ka waalay oo adigaan hadda i daawanaya aad ka waali kartid ogow in uu ka waalay isdhihin hanu ku fikirin gabadhan iyadaa ogolaatay saan hala yeelo iyadaa inta ka dhacday waryaa raganimadiina dumarka ugu xoog sheeganina ee raganimadiina dumarka ku difaaca Asra
gabadha waxaan ku sameeyey waxa igala daran war shacabka dameerka miyuu idinka dhintay tan oo kale maaha wax fani laga sameeyo wax gaagaaban maahan qof dhan oo bini'aadana oo gabar ah oo maskiin ah aan mustaqbalkeedii mugdi galay meeshaa dhihi laheedeen waa aragtay meeshaa ku aragtay uga tag in aad sii sheer garayso aawa dameerka shacabo war dameerka miyuu naga dhintay war naxariista miyay naga dhammaatay aan u soo laabto qofka waxaan ku sameeyey aniga horta iguma cusbo ragga magac un ragga ka ah balse u dhaqma qaab ka liita dumarka inaan ku mataalo maaha kuwaas oo kale mararka qaar markii anaga aan wax samaynayn ragga haddii aan nahay waraa dumarkaa ka liidataa taas naftirkeed in la dhahaa qalad ah oo qof la yidhaahdo dumarkaa ka liidataa dumar maxay u liitaan ma liitaan waa run 50 way yihiin oo nin rag haddii aad tahay ilaahay 100 uu kaa dhigay sababta aad 100 u tahay maxay tahay mataqaanaa garashada iyo garaadka iyo naxariista waayo dumarku waa masaakiin bal ka waran ilaahay baan kugu dhaarshay nin raganimo sheeganaya oo gabar ugu hanjabaya ama gabar intuu la haasaabo muuqaal inta ka duubo soo dhigaya war boqol aragna anaga wallahi kuwa la ii soo waca arkay ee la dhahay walaal nin saas jiro waa ku baryayaa adaa bulshada ku jiro oo caana wuxuu igu hanjabay meeshaas iyo meeshaas inuu isoo dhigayo ee waa ku baryaa walaalkay haddii aad taqaanid la xiriir igala hadal wallahi ilaaha iga hadal siinayo wallahi summa billahi summa tallahi waa isoo martay ninkaas caankaa magaciisa afkeyga kama sheegayo maadaama arrintaas la soo xaliyey gabar baa inta isoo wacday igu tiri nin hebel oo caan ah ayaa waxna dhex mareen mar uu meeshaas yimaaday oo aniga aan ku noolaa waxaan kaa baryayaa walaalow maadaama nin caan tahay oo fanaaniinta aad kala taqaanid dadka bulshada caanka ah aad taqaanid wariyaasha aad taqaanid adiga maadaama dadka caanka ah aad contact leedihiin haddii aad maaragtay contact la leedahay haddaad la lahaynba in aad ii raadiso walaalow ninkaas in lala hadlo wax saas camalow iga haayaa in ninkaas wuxuu igu hanjabay in uu soo deyn doono waxbaan isku afahmi weynay wuxuu iga hanjabay in muuqaalo iga haayay uu ii soo diraan ku naxay in arrintaas aad gashaan ilaahay wuxuu nagu ogaa arrinta waa la galay isagina xoogaha axmaq saasa muu ahaane wuu isgartay barteedaa lagu damiyey gabadhaasna sharafteeda ilaahay waa u badbaadiyey marka dadka waxaa ku jiro dad caan ah fanaaniin leh wariyaal leh wax kasta leh oo bulshada magac ku leh oo la moodo in sharaf ay leeyihiin oo markay hadlayaan iska dhigay inay dumarka ixtiraamaan balse wallaahi oo billaahi ayadoo caanimadooda lagu soo raasanaya ayaa gabdhaha masaakiinta markay soo raashadaan waxay ku sameeyaan intay ka waalaan kadibna sidaan oo kale screen recording intay ku sameeyaan ayay waxay ugu hanjabaan waxyaabaha qaar inay la seexdaan oo kale in maaragtay allahu mustacaan lacaga xitaa mararka qaar lagu xujeeyo oo kale siyaabooyin fara badan mararka qaar waxaa dhacdo in intay la haasaawaan ay saan oo kale screen recording ku sameeyaan ee ka duubaan gabadhina real life markay imaado kale inay diido inay la seexato waa gabar masaakiina wuu ka waalay maskaxduu ka galay adiga wax maaragtay anshaxumu la sameeyay intuu la sameeyay saan oo kale screen recording uu ka duubay hadhow wuxuu leeyahay hotel hebel ama meel heblaay aan kugu balansaday imaw gabadhi taleefanka in waxaas laga sameeyo way ogolaatay balse ma ogolo in caadi ahaan ay ugu tagto oo way ku adkeenay markaas wuxuu leeyahay waa diiday Soomaha in aniga adiga aan maaragtay wada seexano wax